Kuwo badan oo asaagiisa ah waxay ka lumeen waddada, qaarkoodna waxay waayeen waalid si wanaagsan hormuud ugu noqda, balse isaga waa uu ka duwan yahay, isla markaana waa uu ka nasiib badan yahay dhammaan kuwaasi. Shaqsigan ka hadlaya waa Maxamed Yare, waa wiilkii dhowaanahan sida weyn u qabsaday baraha bulshada, isla markaana muuqaaladiisa siyaabooyinka kala duwan dadku ay kaga falcelinayeen. Wiilkan yar ayaa dhowaanahan waxa uu ahaa shaqsi si weyn u gelgelay baraha bulshada, sheekadiisa ama muuqaaladiisana waxay noqdeen kuwa ay jecleysteen badi dadka. Wiilkan lagu magacaabo Maxamed Yare oo ku sugan dhulka dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu baahiyay codkiisa isagoo wax badan kaga dayanaya sheekha caanka ah ee Sheekh Xuseen Cali Jabuuti, waxaana dadku badi ay tilmaamayaan in badi wiilkan cashirada ama khudbadaha uu jeediyay Sheekh Xuseen uu yahay mid xifdiyay isaga. Markan waxa uu gudoomayaa hadiyad qaali ah dhulka miyiga uu ku sugan yahay. Maxamed waxa ugu tagay dad aad ugu farxay isaga wanaagiisa, isla markaana doortay inay soo arkaan Maxamed si hadiyad ay u guddoonsiiyaan. Dadka badi waxay leeyihiin wiilkan waxa uu hayaa waddada wanaagsan ee Sheekh Xuseen Cali Jabuuti. Mar kale ayaa Maxamed Yare waxa uu soo bandhigayaa isagoo codkiisa macaan adeegsanaya hadallada wanaagsan iyo khudbadaha qiimaha badan ee mid ka mid ah hore u jeediyay Sheekh Xuseen Cali Jabuuti. Ku xirnow mar waliba Sharmarka Media. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث رضي الله عنه وركاس النبي خير يا معاذ أهلها أوين آمس قال أنت أيام هذا كان يقولوا وكل إلهي كعب صودا ناشي دونا بحجوجان سبعا كيدونا بحكم الله.